بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خير طواني سلامي. maanta waa xiisadeeni labaad. dabcan shalay tolo waxaan soo baranay beerishin galfinbar iyo boolishin galfinbar. maantana waxa aan xiisadeen aan focuska ku saari doonaa oo inoogu xigay galfinbar doji. marka doji uu noocyo badan yahay mataqaanaa marmarka qaar waxa loo kala qaadaa ilaa 5 inuu yahay, marmarka qaarna 4 baa la keenaa. marka waxa jira imika halkan 4 baan ayaan focuska ama awood ku saari doonaa. doji star iyo long legged iyo dragonfly doji iyo gravestone doji iyo fulbright doji. marka doji waxa uu candlestick kale uu kaga duwan yahay, hal mid buu kaga duwan yahay oo aan sheegayaa. shalay maxaan soo baranay candlestick in meelna lagu furo meelna lagu xidho. marka kan wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale, isaga hal meel ba qiimaha lagu furay, hal meel baana lagu xidhay. dabcan saad arki karto imika u fiirso, haddii aad aragno halkan haddii aan aragno halkan waa lowgiisii tusaalahan ka soo qaad, ama halkan waa lowgiisii, halkan waa haygiisii. marka waxay ahayd halkan inuu intan oo kale mataqaanaa intan oo kale inuu buuxo ayay ahayd, intan oo kale inuu buuxo, halkana open ahaan lahayd, halkana close ahaan lahayd, soo maaha. laakiin imika u fiirso, halkan waa halkan taayir oo kaliya, halkan waa highgi, halkan waa lowgi. ma jirto meel kale oo qiimuhu aan inta yar ahayn uu ka buuxo. u fiirso doji dhan waa noocaas. marka isaga doji wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale, isaga qiimaha hal meel baana lagu furaa, hal meel baana lagu xidhaa doji. marka inta xasuusnaada ama inta la socdo doji markastoo aad maqasho la socon qiimaha hal meel lagu xidhay misana hal meel lagu furay. marka u fiirso suuqan waxa ku dhacay. suuqan waxa uu ahaa suuq mataqaanaa buy ku socday ama uptrend ahaa oo buyersku ay xoog ay ku wateen buu ahaa. dadna halkaas waxay noogu samaysmay doji ka bacdi suuqii waxa ku dhacay reversal, ama inuu jihadii ku socday maahe jiha kale inuu u dhaqaaqo ayaa ku dhacday. doji mar walbana waxa ku leh qiimaha isagu waxa lagu gartaa halka lagu furay iyo halka lagu xidhay ayaa isaga ayaa isku meel ah. meesha qiimaha lagu furay iyo meesha lagu xidhay ayaa hal meel ah. aan ka socono aan ka gudubno, tusaale badan baan arki doonaa. waxaa arki kartaa imika halkan u fiirso, waxa aan arki karnaa in suuqan uu ahaa suuqay buyersku xoog ay ku soo wateen. waxaa dhacday in suuqa la isku dayay, sellers baa soo galay, waxay isku dayeen xoogaa inay suuqi soo ridaan, haddana waa laga adkaado. waxaa la isku dayay in suuqa kor xoogaa loo yara qaado, haddana sellerskii baa awoodii la wareegay mataqaanaa hoos. waxay isku dayay suuqa inay hoos soo ridaan, haddana waxa la isku dayay in kor loo yara qaado ayaa la isku dayay. haddana halkaas waxay noogu samaysmay double doji sidaad arkayso, star doji iyo long legged doji. ka bacdi suuqii waxa ku dhacday reversal oo total jihadiisii jiha aan ahayn inuu u dhaqaaqo ayaa dhacday. aan ku celiyo san isugu fahno, waayo aad iyo aad buu muhiim yahay doji. suuqan wuxuu ahaa suuq uptrend ku socda oo buyersku ay xoog ku wateen buu ahaa. waxaa la isku dayay suuqa hoos loo soo yiri rido, haddana kor baa loo yara qaaday, haddana hoos baa loo soo yiri riday, haddana halkaa waxaa dhacday in lagu kala adkaan waayo. ka bacdi halkaa waxay noogu samaysmay double doji, star doji iyo long legged doji. ka bacdi suuqa waxa ku dhacday inuu noqdo reversal uu jihadiisii uu ka bedesho. marka halkan waa halkii mataqaanaa stop loss ka dhigan lahayd, halkan waa halkii aad ka geli lahayd mataqaanaa intrigaaga ama candleka koowaad ama ka labaad ama ka saddexaad, meelahaas oo meelahaas ka geleed ilaa halkaana waa target kaagii ama take profit kaagii. waan iska dhaafaya, tusaale badan baan arki doonaa, waan iska dhaafaya, hore aan soconaya. inaga masaxo doji. u fiirso suuqan waxa uu ahaa suuq uptrend ah oo ay buyersku ay xoog ku soo wadeen, haddana hoos baa loo soo yiri riday, haddana suuqii kor baa loo yara qaaday, kor baa loo qaaday. halkaa waxay noogu samaysmay resistance-ka. dabcan doji baa inoogu samaysmay, doji candlestick ay noogu samaysmay. ka bacdi waxaa dhacday suuqi reversal baa ku dhacday oo suuqi downtrend xoog ah ayuu sameeyay. aan ku celiyo, aan naga tirtiro.
suuqan waxa waa suuq uptrend ku socda oo ay buyers badan ay ku jireen oo ay xoog u wadeen buu ahaa. halkaa resistance waxay noogu samaysmay doji candlestick, kabacdi waxaa dhacday sellers baa soo galay suuqii oo dabcan xoog u soo riday oo suuqii reversal baa ku dhacay oo wuxuu sameeyay jaha aan jahadii uu u socday marka hore ahayn ayuu u bedeshay ama suuqu u digay rogtay baan odhan karnaa. marka waan ka sii soconayaa, waxaan rajeynayaa inaad doji imika aad ila fahamteen baan rajeynayaa. horaan sii soconaya aan u imaado standard doji aan u imaado u fiirso. suuqan waxa waa suuq lagu kala adkaan lahaa, qiimaha kor baa loo yara qaaday, haddana halkaa waa lagu kala adkaan waayey, hoos baa loo soo yara riday, haddana waxa isku dayin kor loo yara qaado, haddana hoos baa loo riday qiimihii, haddana kor baa loo soo qaaday. halkaa waxay nagu samaysmay resistance-ka standard doji. waxaa dhacday in suuqii hoos loo soo rido, haddana waxa la isku dayin kor loo qaado, haddana hoos baa loo sii riday, waa lagu kala adkaan waayey. dabcan sellerska ayaa xoog batay, suuqii waxaa dhacday in hoos loo sii rido. aan naga tirtiro tusaalayaal badan baa arki doonaa, aan hore usii socono. aan u imaado dragonfly doji. dragonfly doji iyo grafistone doji iyagu waxay kaga duwan yihiin kuwii kale. highgooga iyo lowgooda mid baa dheeraanaysa, midna highga dheeraanaysa, midna lowga ayaa dheeraanaysa, laakiin halkii waa iskaga mid. qiimaha meel baana lagu furayaa, meel baana lagu xidhayaa. u fiirsanka kan waxa dheer, lowga dheer, highga ma jiro, qiimahana isku meel baa lagu xidhay, isku meel baana lagu furay. marka suuq saameyntu ku leeyahay baan ku sii socon doonaa, horaan usii geli doonaa. u fiirso, suuqan wuxuu ahaa suuq down trend ah oo sellersku ay cadaadis ku hayeen ama ay hoos u wadeen buu ahaa. halkan waxay noogu samaysmay dragonfly doji baa inoogu samaysmay support, halkaa supportka. kabacdi suuqii waxaa dhacday inuu jahadiisii ka bedesho, mataqaana uu up trend noqdo. suuqan waxa uu ahaa suuq mataqaana ay buyersku ay cadaadis fara badan ku hayeen ama ay xoog ay u wadeen ama ay doonayeen inay kor u qaadaan qiimaha. halkaa resistance-ka waxay noogu samaysmay grafistone doji oo dabcan isaga highgiisa baa dheer la soco, kana lowgiisa dheer, laakiin halkaa waxay iskaga mid yihiin. qiimaha hal meel baana lagu xidhay, qiimaha hal meel baana lagu furay. suuqan waxa waa suuq uptrend ah ama buyersku ay xoog ay ku wadeen ama ay cadaadis ku hayeen. halkaa resistance-ka waxay noogu samaysmay grafistone doji. waxaa dhacday in suuqii hoos loo soo rido, weliba xoog hoos loo soo rido ayaa dhacaysa, ama uu reversal uu ku dhaco jaha aan jahadiisii ahayn, suuqu uu u bedesho. marka tusaalayaal kale ayaan u tegi doonaa, aan kasii socono. u fiirso, suuqan suuq wuxuu ahaa sellersku ay xoog ay ku haystaan ama xoog qiimaha hoos u ridayeen buu ahaa. halkaa resistance-ka waxay nagu samaysmay dragonfly doji. dragonfly doji ayaa halkaa inagu samaysmay. kabacdi suuqii reversal baa ku dhacay oo jahadiisii uu ka bedeshay, jahadiisii jaha aan ahayn ayuu u bedeshay. suuqa waxaa ku dhacay reversal ayaa ku dhacay. aan ku celiyo si aynu fahanno. suuqani waxa uu ahaa suuq sellersku ay cadaadis ku hayaan ama ay xoog ay u wadaan inay qiimaha hoos u ridaan. halkaa resistance-ka markii lasoo gaadhay ama halkaa markii laisla yimiday ayaa waxaa buyers baa suuqi soo galay. waxaa la isku dayay mataqaanaa in kor qiimihii loo qaado. halkan waxaa noogu samaysmay dragonfly doji. kabacdi waxaa dhacday suuqii in reversal uu ku dhaco oo jahadiisii uu ka bedesho ayaa dhacday. waad arki dabcan waa ujeednaa baan filaya ama waan arki karnaa awoodda uu suuqa ku leeyahay dragonfly doji ama doji oo dhan. aad baana u fududahay in doji la aqoonsado. dabcan shalay waxaan baranay engulfing bar, maantana waxaan baranaynaa dragonfly doji.
qeyb suuqa kamida ama pattern ama Japanese candlestick pattern suuqa kamida oo dhaca ayaan baranaynaa. waana wax aad iyo aad u muhiim ah in la barto mataqaanaa. haddii aan xiisadeena ama casharkeena hore ugu sii socono, hadda maxaan soo baranay Dragonfly Doji. hadda u fiirso, suuqan waxa uu ahaa suuq mataqaanaa lagu kala adkaan la'aa buu ahaa. waxaad arki kartaa qiimaha in hoos loo soo riday kabacdi buyers ba suuqa soo galay. waxa la isku dayay qiimaha kor loo qaado. halkaa waxay nagu samaysmay bearish Dragonfly Doji ah. kabacdi waxa dhacday totally suuqii inuu reversal ku dhaco oo jihadiisii uu ka bedesho ayaa dhacday. aan ka sii soconayaa tusaalayaal badan ayaan arki doonaa. ka sii soconayaa Gravestone Doji kii hore xagee dheeray xaguu dheeraa. waxa dheeray lowgiisa dheeraa mataqaanaa dabcan halkaas uu ku yaalay lowgiisa kii hore dheeraa. kana maxaa dheer, kana highgiisa dheer, kana highgiisa ayaa dheer. laakiin u fiirso isku waxba ka siibin qiimaha hal meel baana lagu furay, hal meena baana lagu xidhay. waa long higher shadow. kii horena muxuu ahaa low higher shadow buu kii horena ahaa. bal aan u fiirsana kana Gravestone Doji isagoo waxa mar walba dhaca suuq mataqaanaa ay buyersku xagga resistance suuq u dhaca. inta u badan resistance ku dhaca. kii horena muxuu dhacay support ka suuq ayuu dhacay. hadda u fiirsato suuq mataqaanaa ay buyersku ama ay xoog ku soo wadeen ama ay awoodiisa haysteen oo ay doonayeen inay qiimaha kor u qaadaan ayuu halkaas ku samaysmay. marka waxa dhacaysa suuqaas inuu ku dhaco reversal inuu ku dhaco ayaa dhici karta. marka aan ka sii soconayaa ka gudbayaa halkan imika uu intusayaan waa halka stop loss ka dhigan lahayd iyo halka aad ka geli lahayd weeyaan. suuq mataqaanaa uptrend ahaayo buy ama buyersku ay xoog ay ku wadeen oo ay doonayeen inay qiimaha kor u qaadaan ayaa waxa halkaas sare inoogu samaysmay Gravestone Doji. kabacdi waxa dhacday suuqi inuu noqdo reversal ku dhaco oo jihadiisii uu ka bedesho. halkaasina waa halkii mataqaanaa stop loss ka dhigan lahayd. candleka koowaad ama candleka labaadna waa halkii aad ka geli lahayd entry-gaagii ilaa maaragtay meeshaasna waa target-kaagii ama waa take profit-kaagii. anaga tirtiro ama anaga masaxo waan ka gudbaynaa. ugu dambeyntii waxa aan kusoo gabagabeynayaa xiisadeena maanta ama waxaan halkii ugu dambeysay baan imanay oo ah for price doji. isagoo aad iyo aad buu fududahay oo mataqaanaa waa leen yaro sida u jeexan oo qiimuhu laakiin wuxuu kala mid yahay halkii lagu xidhay iyo halkii lagu furay baa isku mid ah mataqaanaa. halkan imika waxay noogu suuqan waa suuq wuxuu ahaa sellers wuxuu ku soo wateen. halka waxay noogu samaysmay for price doji and then waxa dhacday haddana suuqii kor loo qaado. haddana suuq waa la soo yiri celiyay. haddana halka waxay noogu samaysmay for price doji. haddana suuqii hoos baa loo soo riday hoos. halka hoos haddana waxay noogu samaysmay double for price doji. haddana waxa dhacday in suuqii kor loo qaado. waxaan filayaa inaad fahanteen for price dojina. ma rabo inay xiisadu intan ka dheeraato. waxaan filayaa inuu doji yahay wax aad iyo aad u fudud in la aqoonsado hadday tahay afartii dojiba sida long legged ama star ama Gravestone ama for price doji inay aad u fududahay in la aqoonsado. marka intaasaan kusoo koobayaa xiisadeena maanta. asalaamu calaykum.